xildhibaan Axmed Nuur Yuusuf Kuruuje oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland oo xarunta golaha wakiilada kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku bogaadiyay go'aankii uu shalay toole shirkadaha ugu fasaxay inay soo dejiyaan shidaalka. xildhibaanku waxa uu sheegay inuu ku dayasho mudan yahay go'aanka uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu sheegay in lagu hambaliyeeyo tallaabada uu qaaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. maanta oo ah kowdii bishii 3aad 2022 ama kowdii Maarch 2022 waxaan ka hadlayaa laba qodob oo kala ah go'aanka madaxweynaha uu shalay soo jeediyay arrimaha shidaalka iyo gudida awaaraha bixitaankooda ay baxeen. waa takoobaade shirkii jaraa'idda isugu keen dambeeyay ee aynu halkan kaga hadalnay iyo fadhigii golaha ugu dambeeyay ee abaaraha lagaga hadlayay doodii aan ka soo jeediyay iyo hadalladeedu bariyihii u dambeeyay 3 bilood ee u dambeeyay waxa ku saabsanaan arrimaha shidaalka. maalintii u dambeysay waxaan soo gaarsiiyay madaxweyne haddii aad shidaalka arrinkiisa wax ka bedesho waxa laga yaabaa Ilaahay baynu jannada kugu geeyay. shalay madaxweynaha waxa ka soo yeedhay go'aan ku saabsan shidaalka oo dadka oo dhamma aad iyo aad ugu farxeen soona dhaweeyeen aadna uga mahadnaqeen. markaa anigoo ku hadlaya oo ka jawaabaya dareenka shacabka ee aanu matalaadiisa halkan u fadhino waxaan madaxweynaha halkan ka gaarsiinayaa mahadnaq iyo taageero iyo bogaadin ku saabsan arrimaha shidaalka. waxaan leeyahay madaxweyne mar walba waxaanu halkan u joognaa dareenka dhabta ah ee shacabkaaga inaanu ku soo gaarsiino waayo annagu wakiiladii shacbigaanu nahay habeen iyo maalin annaga dadka dhex fadhina waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan ayaanu ku soo gaarsiinaynaa. mar kasta oo aad qaadato go'aan ummadda ka farxinayana waxaanu ku soo gaarsiinaynaa mahadnaqooda. cadaalad maaha inaanu marka wax qaldan yihiin ku sheegno marka wax saxan yihiin aanu aamusno. taasi maaha wax cadaalad ah. marka aad wax saxdo waanu kugu mahadnaqaynaa. marka madaxweyne waxaanu ku leenahay maanta waad mahadsan tahay halka ka sii wad mar walbana dadkaaga dhageyso oo madaxweyne dadkaaga u jooji oo u jiifi talada oo u janjeedi oo mar walba wixii shariicada islaamka ka horimaneynba wixii dadka dani ugu jirtay yeel annaguna waanu kugu gargar taaganahay ummadaaduna waa kugu barbar taagan tahay Ilaahay xaqiisana siyaasadda ugu dhawaanaysa. marka madaxweyne adiga maanta waxaan mahadnaq iyo bogaadinahayn kuma hayo dadka u haysteen anigu inaan madaxweynaha wax gaara ku haysta ama si gaar ah u diidaynayna wax la maanta baarka anigu dadku maal u hadlaayo madaxweynuhu markuu dadku wanaajiyo qofka koobaad hambalyeynaya bana